dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu uhi waatee waata marka uu ninkeygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaashan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya ugu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi taabiciintii buu ahaa silata ibnu ushaym raxmat ullaahi calayh nin wuxuu ahaa aad da'diisu intay weynaatay ictizaal buu sameeyey ictizaal waa maxay yani mujtamacii buu ka dhex baxay cibaaduu markaa u tafaruqay maalinkiina siyaam habeenkiina qiyaam maalinkiina soom habeenkiina salaatuleyl markaa nin adeer u ah baa u yimid oo ku yidhi inantaydii baan ku siiyey waana kuu dhisaynaa waa la soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyey markaasay ninku waa nin caabudu cibaado badan dharna ma haysto markaasaa lagu yidhi qolka xamaamkaa galoo meydha baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tae orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosadu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu 2 rakaco uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadata ina haysatabe soo maahin de laa ilaaha illa allah wataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa layta war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayaan dhaqanka islaamka leylatu zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa 2 rakacay iyuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nabi maxamed inaanu kugu hogaamiye sida 2 rakaca aad igu daba tukatay haddeetooda aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay nebigu waa kii lahaa khayru الnisaa man idaa nadarta ilayha saradka waidaa amartaha aطaacadka waidaa gibta canha xafidatka fii nafsiha wamaa laka dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu uhi waatee waata marka uu ninkeygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaashan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya ugu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka 2 ragcadood ee sunnaha gabadha habeenkan la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay haddeetoola adiga anaa kuu imaama ana taacadda ilaahay iyo taacadda nabi maxamed baa kugu hogaamine sidaas salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada anigaa kuu imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxaa sunno ah halkaa fooda in la qabto fooda ducadee lagu akhrinayaa allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat calayha soo mahayn
khayra ma jubilat calayh waacuudu bika min shariha wa shari ma jubilat calayhi waxay ka dhigan tahay waxaa ducada macnaheed waa maxay ilaahow haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeygana waan kaa magan galay sharka aad ku abuurtana waan kaa magan galay halkaa fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxaa ku taalla bay culimmadu leeyihiin waa daakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan weyda ka waran labada soo khatar ma wamaa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha lidalika ilaahay qur-aanka waa kii lahaa uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajida ku barbaaray ee daacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay yidhi boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam boqoliyo konton hadduu gaadho caqligiisu waa taam 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa way shanqari qalow birba ka dhashan qari ثم رددناه أسفل سافلين بأوتال لذلك هذا كان رأس قبل هالك هاي لقبتها السنة بركة نك لبعض الركعة عمركو كعي أي دبجوك ستي سي لبعض الركعة وجود جرين صلاة دي فجر باللغو إعدامي إنك أنا كور رمى هذا كان عروسة الله سوه يضمر كوير حلا أيو عروس كل رئيس دا يولي وركوان خير كوغا الله بديه كاسو بحانا سوسا ما هدا ما شاء الله لما ركعات وهابين كي هودن صح نقاس تابعي صلاة بن أشيم رحمة الله عليه سدو ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bahayd oo saalixad oo sidiisa oo kale una at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helay sheeg buu ku yiri marka sheekhi baa ku yiri adigu haddaad noqotid adoon ilaahay oo wanaagsan adoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid ha gabadh diin leh addunya mataa wa khayru mataa'iha almar'atu الصالحة سو نبي مودن نولش أدويد وبراحير راحة غير أدويدنا وحى هلبو نبي قولي نك إلهي وكو حاجة جبر وناكسن ودين لي سو ما دون سيدنا نقول إن هذا جبر وناكسن ها هذا بعض وانا نقطع عبدون إلهي وناكسن مرجع نك لين وناكسن بوها إلهي وحوك هنا جبر وناكسن وحبين كيدنا صلاة الليل كي يدنا أحانا نقولن هذا كي فجر كان دعي وكبح يقلك إلى المسجد صباح ذي بهوان كي بقوي من دعرو صدي بل ورن وانا اللي وقال لك إن عابد الصوفي وقالوا جايين بضمر مركز يكون تري صلاة دي أنقلي بكا بحني تري هذا كيف فجر كان سكدهين ليس السلامة صلاة دي أنحرني لما دي ركعات هذا كيف فجر كان يبي حياتي سجى الله قبصة مركا أول اللي ورنيك عن خير الله كوسيه حال عروسة حالته ولا عتصده وقول بشيء وعوري إنك هيك قدر بويوري مركي أوريس حمام بعد الجلسون وتقول ترى ذن بيها كل مايرو بيه كل لوكا قبوبا مكتب بيه كل بالله دقي بيه كل الأمر كان يسكت شبه بويوري نار تبان حسوس تبويوري عذر در عصبنا وادي بسين وادي جلسين عذرنا وادي مرسين قل وهذه جلسين قبل قروح بدل ولا ديارين عديد أي تحت الله قل كامر كان قالنا الجنة دي من حسوستي بيودي لبدي الركعة مر كان حد بيودي جنة دي النار تصدق نقول فكريا صلاة دي فجر الله يا ضابط بيودي